anoo marka ka faa'iideysanaya waxaan soo jeedinayaa oo codsanayaa ugu baaqayaa bulshada qaybaheedu cadaaladda ay sheeganayaan oo qof kastaaba in lagu tilmaamo uu jecel yahay hadduu yahay horjeege ciidan hadduu madaxweyne yahay hadduu gudoomiye yahay hadduu wadaad mawlac maamulo yahay hadduu mid madrasa ama jaamacad ay hoos tagta uu yahay cadaaladda intaas hoos joogtaa inay ku sheegto uu jecel yahay oo uu ugu farax badan yahay waxa lagu sheego inuu waxaas ku xaqiijiyo innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأمته أجمعين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله العظيم dadka xuduurta oo kiraamta waxay la tahay raggii macnaha lahaa oo subag madoobaha ahaa oo khiyaartii hore oo culimada la kulantay way hadleen marka haddii la yidhi marka ha lagu raggii dhalinyarada waa ku cayaarto dhalinyarada waxaan ka wadaa lafteeda ragga markii loo fiiriyo aan si kale loo qaadan oo weliba xagga macno ahaan laga eego marka waa dowr markaasna qaban kara inaan saas aan ka qayb galno saasaan marka lagu raalli ahaan ayaa lagu qanayaa aniga dowrkaygu waxa weeyaan inaan sida aad maqasheenba aan nuxurkii iyo gabangabadii aan ka hadlo siyaartaan noo socotay sida khayrka badanna noogu sii gabangaboobaysa insha allah awalan waxaan u hormarinayaa waxa meesha loo yimid oo maqsuudka weyn ah oo ah sheekheena sheekh maxamuud cali wacays raxmatullaahi tacaala wa ridwaanuhu wa maghfiratuhu calayh inaan u ducayno ilaahay naxariis aan u weydiisano maqsuudka aan meesha u nimidna intaas u ahaa maantana aan kor fadhino asagoo karaamaysan oo intaanu geesaha ay ka fadhido ilaahay waxaan u weydiinaynaa sida uu nolosha ugu karaameeyey oo ilaahay ugu xiray dadka intii ugu khayrka badnayd oo ah waxa kaliya oo nabigu yiri wax kale oo khayr lama arko oo ah mid wax baranaya iyo mid wax baraya sida ilaahay ugu karaameeyey intuu noolaa maantana ilaahay naxariisiisa inuu ku karaameeyaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inta kadib waxaan ku soo koobayaa khatinka siyaarta 3 nuqdo mid waxa weeyaan culimadii soo dadaashay oo xafladaha qabanaysa ilaa inaan soo koobo waxa ay dadka ugu yeerayaan waxa ay munaashadada ay wadaan iyo nidaha culimadaas ay wado bayaanka iyo baaqa culimadaas wadaan inaan soo koobo nuxurkiisa midda labaadna waxa weeyaan mahad celin intii siyaarta ka soo qayb gashay khidmo iyo safar intay ramaan ha uga qayb galeen iyo qiraa'e aan u mahad celino midda saddexaaduna waxa weeyaan dacwo iyo martiqaad aan fidinayno ummadda kaleeto siyaarta mustaqbalka insha Allah haddaan marka midda hore ku hormaro culimadu waxay wadeen ilaa xal dadaal ay hor u wadi jireen laakiin munaasabadan markii la fiiriyo xalay soo bilowday dadaalkaasoo markii la soo aruuriyo hal shay isugu imaanaya waxa la baadi goobayo noloshii ay ku jidho adduunyo maslaxadii aakhire ay ku jidho hal shay buu isugu imaanayaa culimadu ay dadaalka gelisay waxay higsanayaan waa asaga inaan xafladihiina loo qabtay intaan xuraysano qodobo ka helnana waa noo muhiim halka shay waxa weeyaan waa midda uu ilaahay ummadan ku tilmaamay oo aayadan ku bilowday ay sheegayso ah ilaahay inuu yiri wakadalika jacalnaakum ummatan wasata umar ilaahay waxaan inaka dhignay biir caadilin sida taqana waa cadaalad waxa ay xalku u socdaa waxa la rabaa in la helo dadka intay u xaqiiqowdo noloshooda adduunyo mid aakhira in ay u hagaagtaana
darteeda ugu hagaagtaana waa midaas cadaaladda ilaahay uu amray sida aayadii macallinku uu akhrinayay ay noo cadaynaysay in allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-naasi an tahkumu bil 'adl wuu amray ilaahay in cadaalad dadka lagu xukmiyo ummadina ilaahay uu ku tilmaamay wuxuuna nabiga suubanna uu ku yaboohay cadaaladda waxyaabo fara badan sida xadiidkii muslimka ku taqaaneen muqsidiina على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقصدون في أهليهم وما ولوا وكو عدالة سماية أهل كودا يا أحكام تودا يا وح الله وحي مدحك النقدان وحير يا وح بدن هالنقدين كو عدالة سماية منابر بقيامة كسنان هيان أو نور كسميسان oo ilaahay aad u darajiyay waliba manaamirtaas cadaaladaas waa mid lagu tilmaamay ilaahay quraankiisa miisaanka uu ku sheegay miisaan waxay wax ku hagaagi karaan oo lagu sinaan karaa ayada ah waxa jidhay qasa saxaabiga Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu wa ardaa baa wuxuu nabiga suuban u diray Khaybara markay gacanta islaamka soo gashay geedihii ku yaalay oo geeda timireedyaalka ahaaba heshiis lagula galay yuhuudi markaa ku dhaqnayd inay ka shaqeeyaan mirahana markaas si loo kala qaybsado maadaama dhulkii uu muslimiintu milkiyeen saxaabigaas waxa loogu diri jiray marka inuu qiyaaso intuu tago nabigaas oo ka wakiil ah inuu qiyaaso miraha soo baxaya jumladooda hadhowna sida loo kala qaybsanayo uu kala soo macaamilo way u tageen wuu u tagay arinta asagoo ugu socda waxay ka dalbadeen asaga inay qanciyaan qaybtana sida wax u qiyaasahayana uu wax ka dhimo sida dhabta uusan wax u qiimaynin wuxuu yiri ma waxaad iga dalbaysaa nabiga inaan khiyaano yiri intuu dhaarto wuxuu yiri wax ilaahay abuuray asagaan ugu jeclahay wax ilaahay abuuran adinka aan ku nibcahay biir haddana jacaylka asaga aan jeclahay iyo nacaybka adinka aan nibcahay iguma kalifahayo inaan dulmiyo jawrin ku sameeyo iguma xambaari karo waxay ugu jawaabeen bihada qaamat as-samaawaatu wal ard cadaalada heerka gaarsiisan oo qofka aadan nacabtahay aadan ku seexanaynin uu ka nabadgalayo midka aad la jeceshayna aadan wax u goynaynin waa midda dhulka iyo cirku ay ku taagan yihiin biir ala cadaalada marka noocaas weeye waxa la naadinayaa oo la rabaa inay ku xaqiiqowdo qoyska reerka ah koobaad inay ku xaqiiqowdo bulshada dariska ay ku xaqiiqowdo inay ku xaqiiqowdo sheekha iyo dalabadiisa dhexdooda inay ku xaqiiqowdo inay cadaaladaas ku xaqiiqowdo qofka maamulaha iyo shacabkiisa inay ku xaqiiqowdo waa cadaalada la rabaa inay ku xaqiiqowdo adiga iyo qofka cadaawada tihiin xuduud inay dhaxeeyeen dhaafi karinin inay noqoto waa midda la isugu yeerayaa laakiin shay kasta oo la isugu yeero waxa la rabaa marka intaan asaga inuu qiimo leeyahay aadan fahmin inaad asagu wuxuu yahay fahantid cadaaladu marka maxay tahay waxaan ognaa hadda nin kasta inuu leeyahay markuu xil raadinayo anigu cadaalad baan dadku ku dhaqayaa waa shay marka la wada yaboohinayo waa shay manshuud oo la wada goobayo meel kastana waa shay la raba inay ku xaqiiqoodo maxay tahay marka aan soo koobo cadaaladu waa sifo murakaba ah waxay isaga timaadaa sifooyin oo saddex ah bay isaga timaadaa shaygu markuu murakab yahay waxa la og yahay intuu isaga imaan lahaa hadaysan xaqiiqoobin inuu saasagu imaan karinin waliba sifaadka saddexda isaga imaanayso isku darkooda kama soo baxdo guud mid kasta waa inay xaqiiqoodo hadii qaar ka maqan yahay loo dhutin mahayo ma ahan sifaadkaas waxa weeyaan saddexda oo cadaaladu ku xaqiiqoobaysa midda koobaad waa al-hikma midda labaadna waa al-ifa midda saddexaaduna waxa weeyaan ash-shajaa'a saddexdaas sifo markii la helo baa qofka cadaalad ka suurtoobi kara qadiyadii uu saddexdaas arrimood ku wajaho cadaalad buu ka sameyn karaa
hadduu qadaayaadkiisa dhan saddexda arrimood ku wajahana qof caadil oo mudlaq buu noqonayaa waa midii nabiga suuban uu ku sifaysnaa salawaatullaahi wa salaamuhu calayh sifaadka marka si gaaban aan u dul istaago midda koobaad maxaa nidhi waa xikmadu maxay tahay waa kii ilaahay yidhi waman yuutal xikmata faqad uutiya khayran kathiira ciddii xikmad la siiyo waxaa la siiyey khayr badan waa midda nabiga suuban uu yidhi salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi alxikmatu daalatu lmu'min xikmadu waa qofka muuminka baadi ka maqan baadi waa taqaanaa waad raadisaa si daacadahoo kama dambaysa u raadisaa halkaa marka ayada lafteedii ma aanan sheegin weli laakiin waxaan ka faa'iidnay muhiimadda ay leedahay markuu qofku xikmad u helo khayr badan buu haystaa waana shay inuu dalbo oo uusan siduu ku heli lahaaba waa baadi u gooba ay waajib ku tahay waa noo soo gaabiyeen culummadu waxayna yidhaahdeen xikmadu waxa weeyaan alcilmu annaafic waa cilmi xog hel horta marka hore waa inaad shayga xog ka haysid xogtaasoo weliba mid waxtarahaya ah oo sidii muqtadal xaalka ahayd oo arrintu marka ay dalbanayso lagu dhisay si kale haddii loo dhaho xikmadda waxaa la yidhaahdaa waa macrifatu lashyaa calaa maa kaanat calayhi biqadri daaqati albashariya waxa weeyaan shayga inaad baratid sidii uu ahaayoo dhabta ahaana aad u fahantid intii adiga awooddaad u gaarsiisan tahay xikmaddu waa sax macnaheedu wuxuu isugu tegayaa inaad waxaan xog ka heshid shayga aad rabta inaad gashid ood cadaalad ka samaysid adoon xog rasmiya shaygaa ka hayn oo weliba xogtaasuna mid maslaxo wadata aan ahayn oo say u kala awlaysan tahay aadan u kala hormarinayn cadaalad ma ka samayn kardhaan isweydiinna waa maya kama samayn kar aasaaskeeda koobaadu marka uu cadaalad yeelan kardhaa waa shayga inaad xog ka haysid xog oo dhan maahan waa xog wax dhista oo wax anfacda waa inaad shayga ku wajahdid waa qodobka koobaad saa darteeda bal aan fiirino markii xikmad ay culummadu wax ku wajaheen ama dadkii madaxahaayoo talin jiray ay xikmad ku wajaheen waxa nuxurka ah oo u xasilay oo faa'iido ah adduunkaanay dhiseen maanta aan joogno nabigeena suuban uu ka soo bilowda salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi 23 sano baa nabiga suuban oo caalamka islaamiga ah oo maanta inta aragta dhan inta la jahraysa si kalena loo dhihi karo caalamka dhan waa ummadii nabiga suuban salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi sababtu asagoo ummatu dacwaba ah caamkaasba aanan ka wadin baa tacliimtii iyo tawjiihaadkii nabiga suuban uu bixinayo salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi bay ummaddu laba ugu qaybsantaa kuwa adduun iyo aakhiraba ku qancay oo ku socda kuwaan aakhir ahaan u aaminin laakiin adduunka maslaxadda uga maarmi waayo ayadii ku dhaqmahaya baa adduunka u qaybsan yahay markaasuu nabiga suuban muxuu yahay salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi almucallimu lmutlaq mucallimkii dadka wax baray iyadoon bulshada la kala qaadin noocay rabta marka ha ahaato waa 24 sano 23 sano qaarkeed weliba aad ogtihiin rafaadka la soo maray waxaa lagu dhisay xikmad markii lagu wajaho saasay ku imaanaysaa haddii meesha xikmadu aysan imaanin ee waxa xogba aan laga hayn ee kuturikuteen looga kaaftoomo ama aan baxsigeeda la kamilin ama aan say awliyaadka u kala leeyihiin aan loo kala habaynin waxa imaanaya ayana aan wax ka miisaaliyo inta garaadkayga iyo fasaad imaanaya waxa maanta adduunka lagu qarribayaa waxyaabo diin dadkii laga diin ahaan loo cabirayo marka laga tarjumayo ijmaaci culummada iyo islaamkana khilaafsan miisaal dhow baan ka soo qaadanayaa oo meesha ay laadahayna ay tahay xikmad la'aan ama xog la'aan ay tahay miisaalkaas waxa weeyaan talaaq baa haweeneydii lagu furay 3 baana lagu furay hal lafdi ahaana loo adeegsaday anta daaliqun 3 baa la yiri waxa haatan maanta socota soo ma ogidin in la yiri waa hal dalqo baa laga soo qaadaya arintaas bulsho dhan baa wada dad badan baana lagu dhibaateeyay maxay ku dhisan tahay ma arin sax ah maya ijmaaci culimada ay khilaafsanta ijmaacaas oo soo bilowday saxaabtii oo nool radiyallahu anhum
sayid cumar uuna xilligiisii soo bilowday oo intay asxaabtu fadhiisatay go'aan ka qaadatay ijmaacuna daliil la'aan ma dhaco madaahibta aan naqaano caanka ah iyo ciddaa rabti sheeg sufyaanayn dheh ciddaa rabtidoo kale ku soo dar kulligeed saasay wada qabaan inay 3 dalqo ay noqonayso maantana waa dad badan baa khilaafaya ummadana ku dhibaataynaya oo inay gacan ula tagaan ay maraysaa maxay arrintaas ku dhisanta waa xikmad la'aan shay aan xog laga hayn baa la wajahayaa waxaa lagu leeyahay intii axaadiis la akhriyo sidaanay wuxuu yihiin fahankii waxaana la sheeganayaa salafkan ku soconnaa kitaabka iyo sunnadaan raacaynaa fahamkii salafkan ku raacaynaa sayidaan isweydiinaya sayiduna cumar salaf maya baaba asxaabtii imaamu shaaficiya a'immadii kaleeto bal ayaga ka waran waa arrin bilaabatay cid nin wadaadahoo ka mida min mawaaliidii sanadkii 729 hijradu markay maraysay dadkii dhashay wadaad ka mida arrintaas sameeyey waa arrin xikmad la'aan ku dhisan qofku marka wuxuu isku dayi karaa inuu geesinimo la yimaado inuu dhowrsanaan iyo dhinacu leexasho la'aan la yimaado laakiin hadday xikmad meeshii ka maqantay cadaalad ma xaqiiqoobi karo misaal kalena aan sheego nin boqor ahaa oo xilligiisii talin jiray nin aad u qumansa ahaa la dhihi jiray ibnu subaktakiin la dhihi jiray baa wuxuu ahaa nin adugu geesinimo la siiyey qiimana badan laakiin waxaa jira xikmad la'aan iyo jahli wuxuu bartooda jiray ninkan nin baa u soo dacwooday wuxuu uga soo dacwooday nin asagu abti u yahay hadda nin madaxda u dhow waa taqaanaa saamayn inuu leeyahay ninka madaxda suldaanka baa abti u ah haweenaydayda xaaskaygiibuu iga qaadu yiri waaba la wareeg marka wuxuu yiri waxaa samaysaa isoo ogeysii marka aad kuubsatid habeenkii damaan ninkii ooyay ordaya u yimid wuxuu yiri qisada inaan wax ka qaldaa waa dhacdaa laakiin nuxurkan ka rabaa waa kii dabaqaadka shaaficiyada uu soo radhayay culimo ay ka mid yihiin taajudiin usubki markaasuu wuxuu yiri wuu la joogaa wuu la jiifaa wuu soo kaca wuu u yimid markuu ninkii u yimid oo islaantii ku hubsaday inuu la jiifo buu wuxuu yiri iga dami layrku ku hayay buu yiri iga dami iga baqti kii madaxda dhahaya ninkiina madaxu ka soo jaray markuu madaxa ka soo gooyay walaashiis baa dhashay buu wuxuu yiri waraabi ninkii biyo isi muxuu sameeyay ninkii madaxu ka gooyay layrkana iga dami buu yiri yaani wixii markaa la ifinahayay waraabina waa yiri ninkii kadib uu su'aal weydiiyay oo maxaad faynuusta iga dami ii tiri waraabisa maxaa ii tiri buu yiri faynuusta iga dami waxaan ku iri buu yiri inaan naxariis ii qabataan ka baqa hadaan wajigiisa arka sabab wajiga walaashiisa waraabina waxaan ku iri buu yiri maalinta dacwadiisa ii soo sheegtay nadar waxaan ku galay inaan afka wax saarin ilaa aan ka takhaluso dulmigiisa iyo wuxuu ka marka naf baan baahaa buu yiri ninkaasu marka dhiiranaa halkaasuu ka gaaray cadaalad samaysid laakiin wuxuu sameeyay wax banaan ma yihiin waxaan sharciga islaamku banaanay ninkaanu hadduu zaani muxsaniya dhagax in lagu dilay ahay haddii ba lagu xaqiijiyo haddii kale tan in la jeedalay ahayd markaasuu imaamku tacliiqiyo fi rijaaligu wuxuu dadka ku sameeynaayuu yiri haddaan waxaas maanta anagu maqalno waa dhibaatadana haysatee xamaasad ahaan maxaan dhihi lahayn ninka dadka cadaalada badan weeye ninkaas baan dhihi lahayn waana nin dulmi sameeyay marka xikmad haday meesha ka maqnaato cadaaladu ma xaqiiqoobi ka dhaho midda labaadu oo loo baahan yahay oo cadaalada ku xaqiiqoobi ka dhaa maxay tahay waxa weeyaan al-iffatu waa dhowrsanaantii oo la wada yaqaano eexadii waxaad awoodaa inaad shaygii xikmad u haysid yaani xog dhameystiran aad ka haysid sida uu maantay maslaxadu taana aad garanaysid laakiin aad awoodi weydid naftaada inaad ka garsoortid mid xigta inaad u eexatid inaad ka tagtid inaad awoodi weydid baa dhacda haddaan marka dhowrsanaantaas iyo cifadaas aysan imaanin cadaalad ma imaan karo xukunka kuma cadaalad sameyn kadib muxaadarada aad jeedinaysa kuma cadaalad sameyn kadib wadaad baa isku dhacsantihiin inaad ku durtaa laga yaabaa uga faa'iideysatid wajigaaga inta ku maqlaysa inaad uga faa'iideysatid taariikh aad ka qoraysid kaliya baad uga faa'iideysanaysaa qofka ku duraysaa ku jarxinaysaa ceebaan ilaa weligiis ka xarinin asagii waxa maada dhibin xaqiiqada adduunkiisa baad ka fasaadaysaa marka sumcadna leedahay dhibaatana u geysatay laakiin asagoo aakhiradaadii buu ka fasaadiyay cifa marka hadaan la helinin lagama muxuu ahaay arintaas go'aan kama qaadan karid cadaaladeed
سادرتيد با أدق وحكما هذا ابن أسقي مثال هان سيدنا أبو بكر بأن وحو كيري وانكو عايا عيبانكو عايا قبري كل قشة سيدنا علماء ما لبضن بيكو أرتي أنك أخري الفرق بين الفرق مركزو وحو يرعي قبري كل قشة بانكو عايا ورعايدي هذه عايدي أنا قبري لقل ميسي هذه كل قل إنسان هذه عمل كاغا طيب كأنا جاي واركيسا markaasaad waxaad uga faa'iideysanaysaa qofkii wax aad awoodid miisaal markaasaan taa uga soo qaadno sida ay culimadu cadaaladaas u xaqiijisay ximinta kamidka oo cifada ah iyo dad kale oo markay ku xadgudbeen fasaadka ka yimid ayana laba miisaal aan ka sheego ninkii sheekh ahaa oo caalimka ahaa ibnu daqiiq al-ciid dijri ash'ariga ahaa iyo shaafiiciyada ahaa baa waxa loo keenay maxdar يعني ضراف أما ورقات وحلقوا ديارنا يقرأ لقوا ديارنا يقبيع سئو مركا أفرميه مركا سانين وذاده يعليهين أو شيوخ إسرديان أو يسان إسكوف في عنين بالله كانوا لي هبل تاريخ كقر وكربتونا شيوخ كما قري كروير سبب هدان فرسارة كاس عدالة أصمين ما هي إجود بها بارقبة مركا وحان كقري كرام جرين محي مركا قاعدي عدالتي عفدي maxay ku xambaartay cadawgiisi ugu darnaa inuu asaga ka nabad galo bay ku xambaartay waxa taa barbar dhigtaan waxa lasqiga ah oo culimadii islaamka lagu dhajinayo oo qolo rabta inay tawxiidka u fasirto shuruudo li xuquuq cid taqaanaba la arag ma asxaabtu aysan aqoonin intay tawxiidka u yeesho inta kale inay ka saarto kuwaas waxay culimada ku sameeyaan barbar dhiga waxaad fiirisaan ragii aan hadda soo tilmaamaynay qaarkood oo mawaalidii qarnigaas ahaa waxa ay ifkiga iyo lasqiga ah ku dhajinayaan Fakhruddin Razi Sayfuddin al-Amidi Hujjatul Islam al-Ghazali waxyaabaha beenta ah lagu dhajinaya bal u fiirsada oo ragaas ay ku dhajinayaan maxaad marka u malaynaysaa dad hadda maanta ah marka aad noqotid aad sameynaysid qofka aad ina isku xuntihiin darteed ina been uga sheegaysid nooc rabaha ahaad qofkaas wadaad ha ahaado أما قف كلا تها هذا فساد كمركا إيمان هيا وانفساد كي عدالة الآن كإيمان لها عدالة الناس سكلكم حقيقة بكده أيضا عفله لن مدة صدحات وحمنت صدحات إلى هاي عدالة ولا أنت إذا إنسان حقيقة بكرنه وحويا الشجاعة جيسني ما يربطه وحال جيابا شيء أنا حكتي سي هيسيد مصلحتي سي أدقرنا يسيد حدنا هذا لفهان هذا قد أرسلته لقى يابا إن هذا بين هذا شيء كسمينين إن هذا إيح كسمينين لكن سو مربطه إن تكون عديد تضحية ينفر إن سميسيد إن كود عديد سو معهن هذه هذا تأودين أودن جيس إنما ذا لهين عدالة مسمين كريد وحد أكتهين نبي صوبا صلوات الله وسلامه عليه إنه كتل ما في جهاد متك أو خير كبدن كلمة هي عدالة أهبي عدالة بكعبرة oo laga dhaho inda sultaanin jaa'ir markaasuu muxuu nabigu ku sheegay taasu matahawur baa iyo qad iska tuurnimo maya wa cadaalad baa nabiga suuban ku sheegay salawaatullaahi wa salaam alayhi marka labada hore ay xaqiiqowdo oo ah xogtii iyo xikmadii iyo cifadii shajaaca aan la helin lama dhiiran karo tadxiyo qofku ma sameyn karo shajaacada koobaadna waxay ka bilaabanaysaa in qofku naftiisa uu ka garsoori karo oo wax ka qaban karo qaladkiisii shalay ahaa uusan ka hor istaagaynin maantay sawaab uu arkay inuu raaco ayana aan laba miisaal oo iska soo horjeeda aan ka bixiyo saan u gaabiyo sheekhi la dhihi jiray Maawardi oo kitaabkan xaawuga ah waa taqaanaan oo musaniga imaam Shaafici xorowgiisii kitaabkiisii mukhtasarka ahaa uu ku sharxayo baa nin sultaan xilligiisii bay saaxiib ahaayeen ma hayo sultaankii magaciisa qofkii baarta asaga helaya intaan ka xusuusana iska sheegaya ninka sultaanka ah markii dambe wuxuu la baxay shaahin shaah buu la baxay oo macnaheedu yahay sultaanu salaadiin buu la baxay culumadii marka way kala qaybsantay waa taqaanaayo hadde rag baa markaas laga yaabaa inay dhiiran waayaan waxay fasaxeen culumadii qaar ka mid u iftoodeen laqabkaanu inuu sax yahay hada wadaadna walbusan masala waayeen in uu wax ku meel wax ku kakabiyo sheekhi marka Maawardi la dhihi jiray baa marka oo saaxiibka ahaayeen oo saaxiibka isku dhinta ahaayeen baa ku kacay marka arintii buu radiyay muxaabaad waxa la yiraahdo diinka galana ma aqoonin dadka ahlu sunnaha
markaasuu weliba wuxuu ugu daray hijri iyo ninkii waaba uu ka haajiriba waaba kala dhintay waa ka tag ninkii suldaanka marka muxuu yiri waxaan ogahay bi maawardi inuu muxiq yahay ninka garta leh wadaadadan ii jawaabay oo iskhilaafsan maawardi ba xaq leh maxaa yeelay waxaan ogahay annahu law yuhabi ahadan lahabani bi wallahi haduu maawardi qof feebar u sameeyo anu ii sameyn lahaa bi ibn aadam musan feebar u sameeyay diintiisu san ka tanaazulaynin ma markaas mawaaqicdaas budulada oo haliyeynimada waa iska miisaal yaroon ka rabo bay culimadu qaadan jiray markii arintu halka tagtay aan barbar dhigno waxa maanta socda ama hor u socon jiray waxa miisaal u soo qaadanaya qolo dawladaha kamid ah wadaad lahayd waxay tirnaagu baabuurta ma wadi karaan mahram la'aanna ma socon karaan safar ma gali karaan wadaadadoodii waxay yiraahdeen waa xaq naagtu waa xaraan gaar inay wado sababtu inay khiyaano sameeyso oo rag ku balansataa dhacda hadda inay safar gasho mahram la'aan waa saas ay xaraam ahadiisi nusuusi taqaaneen oo muslim iyo bukhari baa la akhriyay qoladii dawladda waa isbedeshay oo waxay tiri naagahana waa loo fasaxayaa baabuurta waana safri karaan safar la'aan waxa la yiri sax weeyo oo nabiga soo wadaadadii nabiga suuban wuxuu yiri diintan intaad aamin noqotaan baana kaliya safri doontaa haye naagtuna gaariga haday wadato maxay qabtaayo ragga uga duwan tahay mowqif aan isbarbar dhigno marka labada mowqif oo qofka cadaaladda xaqiijinaya uu qaadanayay oo geesinimada iyo midkan kaleeto marka aan isbarbar dhigno shadaha shay marka haday xaqiiqowdo cadaalad ba xaqiiqoobaysa qofka marka waxa loo baahan yahay cadaaladaas maanta in la xaqiijiyo la raadinayo waxa lagu xaqiijinayaa in dalabada la wacyi geliyo bulshada la wacyi geliyo shayga xaqiiqdiisa intii laga dabageeyo in la baro shayga xaqiiqdiisa marka kadib dareenkiisa la tabco oo la yircifo wax la yiraahdo qofka lagu abuuro lagu wacyi geliyo ifadaas heer ay gaadho qofka colkiisa inuu san xumaan u quurinin laakiin uu munaaqashada iyo dooda xor u yahay laakiin uu qofka colkiisa ka nabad qabo waa in geesinimo intii la baro xaqa uu markaa ku dhiiran karo asagoon qof kale ta ku xumaynaynin saddexdaas waxyood marka la xaqiijiyo qofku muxuu soo baxayaa sidii nabi ibraahim ilaahay uu yiri inna ibraahiima kaana ummah kaligiis baa ummad dhan aha wuxuu ummad dhan ku ahaa waa intii ilaahay ummad dhan ku jimleeyo yiri wakadhalika ja'alnaakum ummatan wasata bulshadu marka hadii saas ay bulshada soo saartid waana mid ay matalayeen ahlu sunna xilli kasta soo mareen ay matalayeen oo ay mowqifka u taagnaayeen cadaaladaas ahay anoo marka ka faa'iideysanaya waxaan soo jeedinayaa oo codsanayaa ugu baaqaya bulshada qaybaheedu cadaaladda ay sheeganayaan oo qof kastaaba in lagu tilmaamo uu jecel yahay hadduu yahay horjeege ciidan hadduu madaxweyne yahay hadduu gudoomiye yahay hadduu wadaad mawlac maamulo yahay hadduu mid madrasa ama jaamacad ay hoos tagta uu yahay cadaaladda intaas hoos joogtaa inay ku sheegto uu jecel yahay oo uu ugu farax badan yahay waxa lagu jeego inuu waxaas ku xaqiijiyo si khaas ah midii halkan maanta laga hadlahay dadka madaxda cadaalad baan sameeynaada ay leeyihiin waxay uga dhabayn karaan intay geesinimo sameeyaan oo tilaabo qaadan xumaanta inay joojiyaan bulshadana masaalixdeeda meel kasto ay tahay cadaaladaas inaan xaqiijinaan isu dardaaramaynaa oo dhalinyarada la wacyi geliyo waliba khaasatan kuwa waxa ugu qiimaha badan la barahayo diinka islaamka in cadaaladda lagu xaqiijiyo oo col looga dhigin in wuxuu baranayo kaleeta baranaya oo danaynaya laakiin ay araa isku khilaafeen ninkaas inuu col yahay ka soo qaado laakiin waa inuu waxa waajibku ahoon sunno ku ahayn inuu ka nabad galo oo uusan dulmi ku samayn lasqi iyo been ku dhajin uusan ku samaynin baa marka ku waajiba culmaa la yadin koraale ta halkaasan uga gudbahayaa